Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub waa aniga Usaam Mukhtaar maanta waxaan kula wadaagi doonaa waddo aad ugu hortegi kartid in bateriga mobilkaaga uusan kaa macaananin qaabkii ayaa ugu hortegi kartaa sideed soo isticmaali kartaa haddaba muuqaalkan ayuu hadli doonaa bilow ilaa dhammaad daawo muuqaalkan waxaad ka faa'iidi doontaa sidoo kale haddii aad ka heshay like saar ugu horreyn waxaad soo galaysaa markaas setting kadibna waxaad kasii dooranaysaa meeshay ku qoran tahay battery and device markaa battery and device maraysid waxaad ka dooranaysaa meesha kusii qoran tahay battery deetana waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay power saving kadibna waxaa la rabaa inaad meelahan haddii on ay ka tahay sidan ka yihiin ay ka xirxiran yihiin waa inaad furataa waayo waxay ka caawin doontaa inuu baterigaaga wax badan jiro oo dabkiisana kaysado sidoo kale inuu bateriga ka macaanin oo kuwani waxay qaadan doonaan display oo kale waxay qaadanaysaa bateri aad u badan ay isticmaalaysaa CPU oo kale mobilka wuxuu qaadan doonaa bateriga 70% camal speedka ayuu qaadan doonaa meesha ku qoran tahay sidoo kale iftiinka mobilka asagana wuxuu qaadan doonaa 10% oo bateriga aad u isticmaali doonaa awoodiisa sidoo kale screen limited abshiyada qaar inaad ka xidid marka waxyaabaha hadii ay ku ka xirxiran yihiin ugu horeyn waa inaad furtaa marka haddaad rabtid kan waa iska dhaafi kartaa oo option waaye marka kan haddaad rabtid waa iska dhaafi kartaa aniga waa iska dhaafaya laakiin haddii aan furo ujeedaa waxaa meeshan ku qoran 2 days and 14 hours laba maalin iyo waxaan hayn karaa 14 saac marka haddii aan ka qaadane waxaan hayn karaa laba maalin iyo 10 daqiiqo marka laba farqigaas ay u dhexeeyo sidoo kale kuwa haddaan furfuro ayagana baashi aan ka qaado onta ayagana waxay noqon doontaa 17 hours oo kaliya ay noqon doontaa marka waxay kaa caawin doontaa qaabka markaad furtid saddexda meel inaa baterigaagii waqti badan uu dab ku hayo uusan kaa dhicin sidoo kale haddii aad tan kusii dartin iyadana waa kasii fiican tahay oo tan kaligeeda wax badan hayso waxay caysaa ilaa waxay ka xadidaysaa applicationada dhammaan ee aad u baahneed qaarkood inay awood badan isticmaalaan ka isticmaali jireen awgeerta marka applicationadas ayay hoos u dhigaysaa haddii aad rabto waa iska dhaafi kartaa oo saddexdan ayaad furan kartaa kadib aad kusoo laabanaysaa kadibna hadda waxaan fiirinaynaa markaa qaybta ay ku qoran tahay more battery setting meesha kadib markaad ku dhufatid waxaad furanaysaa meesha ay ku qoran tahay ugu horeyn meeshan ayaa on ka ah off ayaa ka dhiganaysaa meeshan faa'iidada ay qabata ayaa ah in baterigaaga marka uu gaaro 85 marka uusan dab ka qaadinin oo iska dhaafayo uu dabka intaas ku ekeenayo yacni hadduu 100 gaaro taleefkan uma fiicno oo 100 inuu gaaro taleefka awoodda bateriga ayaa mar labaad hoos u dhacayso kadibna meeshaas waxaa ka imaanaysa inuu kaa daciifo bateriga mobilkaaga sidoo kale inuu gaaro lama rabo mobilkaaga uma fiicno 15 yacni guduudda marka uu soo qoro guduudna inuu soo qoro lama rabo 20 markuu gaaro inaad hore dab gelisid waa inuu 20 markuu gaaro dab gelisaa 85 markuu gaarana asaga automatic iskaga joojinaya sidoo kale haddii ay ku meeshan kore qaybta ugu koraysa haddii on ay ka tahay iyadana off ka dhigo haddii ay off ka tahay on ka dhigo marka iyadana waxay kaa caawin doontaa inuu baterigaagii waqti badan jiro uusan macaanin marka muuqaalkeeni intaas ayaan ku qaadanaynaa maanta haddii aad ka heshay muuqaalkan like sar sidoo kale haddaad ku soo tiirtana keenan ku soo biiri mahadsanidin